saddexda kelimad ee qur-aanka ku jirta ee ugu xarfaha badan kelimadaha qur-aanka ku jira walaal ma taqaanaa? Waxaa laga yaabaa inaad hadalka aadan fahmin. Kelimad waxaa la yidhaahdaa waa eray, Soomaali ahaan waa eray kaasoo leh macno leh, wuxuuna kelimadu ka bilaabataa waa wax laba xaraf iyo wixii ka badan. Haddaba waxaa laga yaabaa inaadan hadda kahor aad isweydiinin kelimadaha qur-aanka ku jira inay kala xarfo badan yihiin anaad hore isweydiin. Haddaba waxaa jira, haddaad ii ogolaato inaan kuu sheego 3 kelimado oo ka mida qur-aanka ku jira oo xarfahoodu ay ka badan yihiin 10 xaraf. Waxaan ku iri 3 kelimad oo qur-aanka ku jira oo xarfahoodu ay ka badan yihiin 10 xarfaha. Waxa weeye waa ba waa xaraf, ta waa xaraf, ma waa xaraf, ya waa xaraf, hamse ama alif waa xaraf. Haddaba marka kusoo dhawaada. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إلهي wuxuu yiri hadday hagaagsanadaan sida adig u rumaysoon oo kale hadday u rumeeyaan way hanuuneen, hadday jeestaanna waxay ku sugnaanayaan khilaaf iyo kala tag. Ilaahayana kaa kaafi doona, ilaahayna waa midka wax maqla, waana ilaahay mid wax og. Marka kelimada saddexaad ee qur-aanka ugu xarfaha badan waa fasayakfiikahum, intaas oo kaliya weeye. Marka waxay ka kooban tahay fa iyo siin iyo ya iyo kaaf iyo fa iyo ya iyo ka iyo ha iyo ma. 9kaas xaraf ayay ka kooban tahay. Marka waa kelimada saddexaad ee qur-aanka ugu xarfaha badan. Maxaan ku iri waa kelimada saddexaad ee qur-aanka ugu xarfaha badan. Kelimada labaad, ilaahay wuxuu qur-aanku yiri nabi nuux soo hadlay qoomkiisii faqaala yaa qoomi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbii wa aataanii raxmatan min cindihi facamiyat calaykum anulzimukumuuhaa wa antum lahaa kaarihuun. wuxuu yiri ka warrama qoomkaygu haddaan ku suganahay daliil cad oo rabbiga xagii ka ahaatay, rabbigayguna oo raxmad siiyey isaga agtiisa ahaatay, taasoo adinka inka daboosha baa la indhihi wax ku arki weyseen. Marka nabi nuux wuxuu leeyahay anulzilkumuuhaa, miyaan laasimi karnaa inaan anigu aan xaq inku sugno wa antum lahaa kaarihuun, adiguna aad kahanaysiin baa la yiri diintii aad kahanaysiin. Marka kelimada aan rabo waxa weeye ee ugu xarfaha badan kelimadaha qur-aanka, kelimada labaad waxa weeye anulzimukumuuhaa. Waxay ka kooban tahay 10 xaraf. Amsadu waa xaraf, na'du waa xaraf, la'du waa xaraf, za'du waa xaraf, miimtu waa xaraf. waxaa kaloo xaraf ah ka'du waa xaraf, miimta kale waa xaraf, wa'du waa xaraf, ha'duna waa xaraf, aliftuna waa xaraf. Marka waa 10 xaraf ayaa ku jirta. kelimada qur-aanka ugu xarfaha badan oo arsalna riyaaxa lawaaqixa faanzalna min as-samaa'i maa'an faasqaynaakum wamaa antum lahu biqaasiniina. ilaahay wuxuu yiri arsalnaa waxaan dirnay ar-riyaaxa dabaylo lawaaqixa si ay u bacrimiyaan daruurihii, faanzalnaa waana soo dejiyay min as-samaa'i samadii maa'an biyo, faasqaynaakum waana inka waraabinaa wamaa antum adiguna ma tihidiin lahu biyahaas biqaasiniina kuwa kaydi karo awood u leh inaad dhulka ku xirisiin. faasqaynaakum waxay ka kooban tahay 11 xaraf. fa'du waa xaraf, aliftuna waa xaraf, siintu waa xaraf, qaafku waa xaraf, ya'du waa xaraf, na'du waa xaraf, hamsu waa xaraf, ka'du waa xaraf, ma'du waa xaraf, wa'duna waa xaraf, gaabtuna waa xaraf. waa 11 xaraf. waana kelimada qur-aanka ugu xarfaha badan. waa mahadsantiin.